fartuun maxamed axmed waxa ay ka mid tahay dadka ka faa'iidaystay mashruuc shaqo abuur ah oo shaqo loogu abuurayo ilaa iyo 3,000 oo qof kaasoo ay si wada jir ah u fulinayaan hay'adda ARC iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland. fartuun waxaa loo maalgeliyey bilowgii bishii Diseembar goob cilaansaar ah oo ay dumarka ugu saarto cilaanka iyo qurxinta kale ee dumarka waxaana la siiyey lacag dhan $2,000 taas oo ay hadda ku shaqayso kuna maarayso nolosha qoyskeeda oo ka kooban ilaa 7 qof. fartuun waxa aan weydiiyey waxa ay ku dooratay fikradan ganacsi ee cilaansaarka waxa ay sheegtay in ay tahay ganacsi ay xirfad u leedahay kuna soo shaqaynaysay ilaa 8 sano balse aysan heli karin dhaqaale ay ku furato goob qalabaysan. waxa ay gabdhaha cilaanka ugu saari jirtay xaafadda iyadoo oo dhaqaalaha ka soo gala oo gaaraya ilaa $5 maalintii ay ku maareyn jirtay nolol maalmeedka qoyskeeda. dhaqaalihii la siiyey waxa ay ku soo gadatay qalab kala duwan oo hadda ay ku shaqayso. qalabkaasi oo ay ka mid yihiin waxyaabihii ay ku shaqaynaysay ee cilaanka loo adeegsanayay. aan ku soo iibiyay 450 tubooyinka dilmada waxaan ku saaray 500 macal hagaajiska lacagta leesiyaan ka gataha waxaan soo iibiyay madoobeysooyin badan aan ku soo iibiyay waxaan ku soo iibiyay daawooyin madaxa adi 200 camal shopping miiskan ka dhigay maxaa la dhihi jiray haddana alaaba ii maqana soo adeegta ma haysanin macnaha waxaan shaqeeyo waan kala qayb jiray qaarna ana isticmaali jiray qaarna waxaan ku dirsan jiray laakiin hadda lacag isqabto aan ku shaqeeyaa leesiyay macnaha evelka hor hal aroos markaan hagaajiyo dadka aan u geli aroos kale ma haysanin waan iska diri jiray hadda laakiin 2 aroos iyo 3 aroos waxaan u geliyo waa haystaa. mashruucan oo la daafuray bishii 11 ee sanadkii tagay 2018 waxaa lagu maalgelinayaa lacag dhan $500,000 waxaana lacagtaasi bixinaysa hay'ad laga leeyahay dalka Qatar. hadda waxaa ka faa'iidaystay dhalinyaro gaaraysa ilaa 600 oo dhalinyaro ah oo loo abuuray ganacsiyo kala duwan qaar kalena loo maalgeliyay fikrada ganacsi. Faaduma Macalin Cali waxa ay ka mid tahay dhalinyaro gaaraysa ilaa 10 qof oo isugu jira rag iyo dumar. waxaa loo maalgeliyay fikrad ganacsi oo aan horey uga jirin magaalada Kismaayo taas oo ah shirkad soo saarta shaambada dharka lagu dhaqo. waxaa la siiyey lacag dhan $2,500 taas oo ay ku soo gadeen agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kiimikadii laga samayn lahaa shaambada iyo caagadihii lagu shubayay. hadda waxay soo saareen 30kii caag ee ugu horeeyay oo caagiiba uu yahay 5 litir waxaana laga gatay 10 caag oo halkiiba ay ku iibiyeen $3 iyo bar halka magaalada Kismaayo ay horey uga joogtay caagii shaambada ah $5 waxaana shaambadan dhalinyaradu ay ku sameeyeen gudaha magaalada Kismaayo horeyna waxay uga iman jirtay dalka aan dariska nahay ee Kenya. Faaduma ayaan weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay in ay la imaadaan fikradan ganacsi ee noocan ah waxayna ii sheegtay kadib markii ay sameeyeen xog ururin iyo baaritaan dheer in ay ogaadeen in fikradani ay tahay fikrad ganacsi oo soconayso oo aan ka jirin magaalada Kismaayo sidaasna ay ugu dhiiradeen. waxay nooga dhigan tahay wax qiimo leh nooga dhigan tahay waayo awal maanan hayninba wax garab istaaga maanan hayninba waxay nooga dhigan tahay marka muhiimad gaar ah noo leedahay anaga wax weyn way nooga dhigan tahay wax qiimo lehna way nooga dhigan tahay waayo waxaan haynin oo aan helnay qayb ka mid ah nooga dhigan tahay iyo waxaan ku faraxsanahay. Ifraax Cabdiqaadir waxa ay ka mid tahay dhalinyarada la yimid fikradan ganacsi ee shirkadda Ilays Shaambo waxa ay qaabilsan tahay qaybta wax soo saarka. waxa ay iga warantay sida ay u sameeyaan shaambada iyo siyaabaha ay ku soo saaraan iyo tirada ay maalintii soo saari karaan. waxaan ka soo saarnaa ilaa 9 shay macna biyaha markii lagu daro number 1 waxa waaye unguraal oo kiilo ah UFC oo nus kiilo ah salti oo cusbadeena caadiga oo ayadana kiilo ah CMC oo 60 garaam ah. Maxamed Sheekh Nuur waa madaxa shaqada ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland waxa uu warbaahinta Jubbaland u sheegay in mashruucan uu yahay mashruucii ugu weynaa ee dhalinyarada Kismaayo shaqo abuur loogu sameeyo. waxa uu intaasi ku daray in 6,776 qof ay soo codsadeen balse kulligood aan loo helaynin maalgelin lagu wada maalgeliyo fikradaha ganacsi ay la imaadeen. waxa uu sheegay in loo helayo 3,000 oo qof oo kaliya ay dad ku jirto qofka doonay inuu ganacsado qaabka ayuu doonay inuu ganacsado qaabka ayuu doonay inuu shaqo abuuro imasa qof ayuu doonay inuu shaqo siiyo. waa muhiimadda aan leenahay aan ka leenahay in dadka loo maalgeliyo
iyo su-aashaada oo jawaabteeda ay noqonayso qaabkee loo kala saaraya waxaa kala saaraya guddi ka kooban dowlad goboleedka wasaaradiisa saddexda wasaaradood hadda shaqada nala wado guddi ka socda hay-adda ARC iyo guddi ka socda rugta ganacsiga mashruuca wuxuu soconayaa muddo sanad ku dhowaad buu socon doonaa gruupka u horeeyay ee targetka aan siinay wuxuu ahaa dadka ganacsatada yaryar ah madaxa hay-adda ARC ee xafiiska magaalada Kismaayo Cabdi Aadan Salaad oo la hadlay isaguna Jubbaland TV ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mashruuc tijaabo ah oo la fiirinayo inuu guuleysto iyo in kale haddii uu mashruucani socdo oo lagu guuleystana ay xigayaan mashaariic kan ka waaweyn oo shaqo loogu abuurayo dad aad u fara badan laguna maalgelinayo ilaa 1,500,000 oo dollar waxaa intaasi ku daray in dadka la siiyay lacagaha iyo maalgelinta mar walba la qiimeyn doono oo ay la kulmi doonaan qiimeyn joogto ah iyo dabagal xoogan hadda feeska ugu hore ilaa 500,000 baa loogu talagalay lacagta loogu talagalay inta weey targetka in la gaaro mise la gaarsiin rabana waa 3,000 oo dhalinyaro ah weey aan ku sheegay barnaamijkan waa barnaamij tijaabo ah waxa xigi doona waxay ku xiran tahay sidaan u guuleysano mashruucan hadduu soo saara mashruuc miro dhal u noqdo sababtoo markaad beer tabcisid inaad wax ka goostarto maarti haddii beerta aad tabcid oo ay go'weyso waxa laga yaabaa sanad dambe inaad ku noqonin laakiin beerta markaad abuurtay ay miro dhasho oo ka soo qaad galay aad tabcid oo ilaa 100 jawaanaad waxa laga yaabaa sanad dambe inaad 200 jawaan aad soo goosan kartid laakiin haddii aad aragtay inay soconaynin hor ma soconaysid niyad jab imaanayo marka mashruucan waa mashruuc tijaabo ah oo loogu talagalay in lagu ogaado maartay dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyay u shaqeyn doonaan haddaan ku guuleysano oo aan aragno marka mashruucan dhamaado ilaa hadda waxaa noo dhiman 9 bilood 9 bilood markuu dhamaado waxaa jiri doona dabagal monitoring evaluation baa jiri doono sida hadda noo wareysan doonaan baa loo wareysan doona dhalinyarada waa la tagi doona meelaha ay ku shaqeystaan goobaha shaqooyinka iyo ganacsigooda la tagi doona haddii la arko in ay miro dhashay de hay'adaha iyo maxaa la jiray nin maalgelinta dadka sameeyo mise private ha ahaado mise dawlad ha ahaado mise hay'ad ha ahaato haddii ay arkaan wixii lacagtii iyo qarashkii iyo juhdiga meesha dhigay hadduu miro dhala de waxa imaanaysa kalsooni waa imaanayso marka waxaan ugu xigi doona waxay ku xiran tahay sidaan u guuleysano Jubbaland ee degmada Kismaayo ay ugu guuleysto programkan mashruucan ay ugu guuleystay ku xiran tahay Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto Jubbaland TV Kismaayo